قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الموضوع محاضرة وأن ربنا إن شاء الله تعالى إن maanta aan ka sheekayno waxa weeye yaa xawaa rifqan bi aadam wa yaa aadamu rifqan bi xawaa. xaaway aadam u dhimri, aadamowna xaawo u dhimri, u tartiibi ama u deji waxaad ahdidba. mawduucan isaga oo silsilad dheer ah oo ugu yaraan 4 cajaladood oo xaawo ku saabsan iyo 4 aadam ku saabsan ah ayaa mar hore yaan ka hadlay. wuuna isagoo cajalada ah uu yaala saan u malaynayo. waxaan rabaa marka mawduucan 8 xalaqa ah ama 8 fadhi ah maanta kuma soo koobi karo, laakiin waxaan rabaa inaan soo khulaaseeyo oo bal inta aan is leeyahay waa muhiim qayb ka mid ah aan idinla wadaago. mas'alada ugu horeysa oo dadku ay isweydiiyaan ama ay isweydiin karaan oo ah xaawo iyo aadam yaa laga wadaa. xaawo waxaan ula jeedaa qofka dumarka ah, aadamna waxaan ula jeedaa ninka ragga ah. Soomaalidu waxay dhahaan dumarka xaawooley markay ka hadlayaan. marka xaawo waa dumar, waa mathal ama magac u taagan dumarka oo dhan. aadamna waa magac u taagan ragga. macnaheedu markaan saas leeyahay kama wado xaawo oo dhan waan ka sheekaynayaa, laakiin waxaan aaminsanahay waxaa jira xaawooyin badan oo wanaagooda aan la sifayn karin oo aan la koobi karin. waxaa jira aadam badan oo wanaagiisa aan la koobi karin oo aan la tilmaami karin. walaakina alinsaana mucaradun lilnisyaan, laakiin bini aadamku mar walba waxuu halmaamaa. marka nebigu sal alla alay slam wuxuu leeyahay kullu bni aadam khataa وخير الخطائين التوابون. حديثك أحمد الترمذي غير كذوريان. بني آدم كان هو خلدما كوا خلدمنا وحاجو خير بدن كوا توابت كان صلابته. مركب وحسوسين قفك في عن، لكن أنت بدن ضدك لباتوين كتعامل كحيسته أي محاضرة كوا جهنته. موضوعا وحان أدورتي لبقى في مقدرته. مسألة الكوبات maanta familadeenna dhibaatooyin badan baa ka dhex jira. burbur iyo kala tag iyo kala noolaansho iyo dagaal aan dhammaanaynin iyo maxkamad bay ku jiraan. qaarka isla noola waxay iskula nool yihiin isla noolaada keliya carruurta isla korsada qayb badan oo ka mid ah saa isla nool. mar walbana khilaaf baa jira, dad badan oo ka mid ah dhex yaalla. waxaad moodaa waxaa hadda nagu rumoobay mathalkii ama mahmaahdii Soomaalidu ay dhihi jireen odayga habarta la saar, dhinaca kalena habarta odayga la saar. macnaha mar walba way isku maran yihiin, waa la isku dhibaataysan yahay. taas darteed ayaa waxaan u doortay inaan ka hadlo mawduucan, aan ka hadlo familada lacalla inuu daawo u noqdo. mas'alada labaad oo aan u doortay wadamadan aan ku noolahay, qof kasta oo cadow ah waxaa damac kaga jira
inuu xaawad umiyo oo uu jidka toosa garamariyo sababtoo waxaa la dareemayaa qofka familka ama usrada ama qoyska ugu muhiimsan waa xaawo ayada hooyo ah ayada xaas ah ayada walaal ah ayada gabadhii ah haddii ayada la dhumiyana qoyskii wuu burburay haddii qoysku burburana mujtamaci muslimka ah wuu burburay ayadana marka waa waano aan isku dayayo in dadka sida ugu fiican uu dhaqankoodu noqdo haday qoys yihiin insha Allah taala waxaan rabaa laba qaybood mawduuca inaan u qaybiyo qayb ku saabsan xaawo aan kula hadlayo iyo qayb aan kula hadlayna aadam laba qaybood oo kala duwan oo waqti suu xoga dheelitiran aan mid walba ka hadli doono dadka hadda nool marka ay ka hadlayaan xaawo haddaan ayada ku bilowno waxay dhahaan xaawo haddaan hadda idin weydiiyo qofka dumarka dhaqankiisu waa sidee waxay yiraahdeen xaawo waa insaan cajiib ah oo ka kooban min almutanaaqidaat as-sulukiyya wa tabiiciyya dhaqan iyo dabeecad iska hor imaanaysa ba qofka dumarka ku dhex jira ولذلك وحال يري حيرت العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة علماء يددك وحقوري جري يكوى قبية يكوى وحتلب هذا ويكوى ريرين فرصة وحي كليهن تجمع بين القوة والضعف وحاقفك الضمر كأ أيضا كلية كل حجرة أود آد أتربضا يجلع آد أتربضا قف أود بدن وهدنا جلعسن برضو كورهم وتجمع بين الجمال والقبح وحي كل مستا قروح وناق آد أبضن إيا حمان آد أبضن وتجمع بين الحب والبغض وحي كل مستا جعيل آد أبضن إيا النعيب آد أبضن وقف آد وحو النعب وحي النبعاته آدنا وحي جعلاته وتجمع بين الوفاء والغدر وقف آد أوفين بدن وضاعده وقف هدنا استبمرس بدن وبلنك بح بدن ساسي يقول لها يعني وحنكوضها السداس قف كان بني آدم كأ أما قبل بني آدم كأ هدي الله تربيه ونقن في عن أي قادته أي وناك سناته انت في عن بان nolosheeda ka soo dhaxbaxda haday xumaato oo qaloocatana inta xun baan nolosheeda ka soo dhaxbaxda wal fiirsada ولذلك وحال يري هناك من صبر أغوار المرأة مدو حاجرة كلية oo qofka dumarka ah waxyaabaha ku qarsoon oo ku dhex jira soo qodi kara والفرصة وفتق أكمام أسرارها أو سرت هذا بنانك صوت لجي هل بدوي وأضلع آدم على نفسيتها أو آدم تصي دقنك حاو سيد الله لا رقمه متك سواك وإسلامك ومتك كلية أو قفك الضمر كأسيد الله لا رقمه أما دقن كذا حقيقة رجع تصي كرا أو فهنسين كرا وإسلام ولذلك وحركة سلمك القرآن كسود دقيقي وسنة النبي قال له قل رقمي صلى الله عليه وسلم وصحابيات كي حاسس كي النبي قال دقن كود اللفيرين يي وصحابيات كي النبي قال دقن كود اللفيرين يي قفك دمرك أو حيئة القف آد غالي أو عجيبة صوته إلهي أبوري ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أيا بحنيي سيد الله لا رقمه تصالى يا شيخ إيوه رقم كونات سيد وياي أيا بحنيي وحان كلا قربنا لبا أرمود إنا ندين إشارة هذا وقت يان لجوجو حاو آدم أيضا واقع كفهن سن أما كفهمي أب حقيقة مرك الله الله
sababtoo ah waa qofka kaliya ee bini aadamka ah ee markuu khaldamo jecel isla markaa inuu dhaho waan khaldamay waa xaawo aadam ma jecla khaladkiisa inuu qirto si madax adayg leh ayuu wuxuu isku dayaa khaladka uu galay inuu gabadha dusha ka saaro oo dhaho adaa khaldan adiga sameeyo adaa sababay adaa keenay inuu dhaho mas'alada labaad oo aan raba inaan ka hadlo waxa weeye maada turiidu xawaa alyawm qofka dumarka ah oo xaawo maanta maxay raadinaysaa daan idin weydiiyey idinka qof kaste oo annaga naga mid ahoo dumarkeenna ka mida maxay rabtaa maxaad rabtaa inaad heshid waxay rabtaa xaawo maanta inay kulmiso bayna alcilmi waddaraasa inay cilmi yeelato ay wax barato soo run maaha taasay rabtaa washahaadaati alcaaliya inay qaadato shahaado aad u sarraysa oo iskuulka ay ka graduate garayso ay shahaado qaadato dhakhtarada ay noqoto nurse ay noqotay rabtaa walcamal waxay rabtaa inay shaqaysato oo bayjeeg ay qaadato walmansab waxay rabtaa inay magac yeelato dadka dhexdooda walwalad waxay rabtaa caruur inay dhasho waliba caruur badan inay dhashay rabtaa waxay rabtaa mujtamacu inuu u fiiriyo qof cajiib ah inay tahay walaakin fi alxaqiiqa markaad soo noqotid waxaad arkaysaa fi nihaaya dhammaadku waxa weeye annaha tajidu nafsaha tajri waraa'a saraab waxay is arkaysaa ayadoo dhalanteed unbay daba ordaysay ku dhimatay shahaado ma haysato cilmi ma baranin caruurtii si fiican uma korinin lacag ma hayso magac male ayadiyaa baaba'day sababtu waa maxay sababtu waxa weeye waxay ku aas-aastay nolosheeda aas-aas daciif ah waxaa la rabaa qofka dumarka ah oo muslimka ah inay fiiriso noloshu say u kala muhiimsan tahay u kala horayso awlawiyaat fi lxayaa oo xaqiiqa ahaan ay u fakerto dad baa saa noqday dad baa iskuul dhameeyey dad baa shaqaysa dad baa faan qurxoon wata dad baa guri noocaasa degan ha ku khaldamin adugu noloshaada xaqiiqada afiiri waxaad samayn kartid maxaa ugu muhiimsan maxaase ku soo xogood samayn kartaa fiiri intaas marka maanta xaawo kasta waxay raadinayso waa intaas laakiin inta ay ka helayso oo uga soo xasilayso way yartahay mas'alada saddexaad xaawo waxay rabtaa waxyaabaha dumarka mostly ku qufulan waxaa ka mida waxay yidhaahdaa alxubu alxaqiiqi jacayl wax la yidhahdo baa ku qufulan sababta waxaa weeye calaa mari alcusuur waxaad arkaysaa waqtiyada taariikhda marka la feeriyo tasmacu aanaati almushtaaqiin waalmushtaaqaat waxay akhrinaysaa oo ay maqlaysaa qisaska jacaylka hadda gabdhaheenna fiiriya mid walba buug yaroo novel ah oo jacayl ah bay wadataa love story ay ku qoran tahay shawyada ay fiirsaan waa shawyo jacayl ah waxaasaa maskaxeeda ku jira kuwo waxaan filmaan hindi ah oo jacayl iyo balaayo ku saabsan bay qaarkood daawadaan way ilmaynaysaa bal waxaan fiiriya oo nolol khayaali oo cajiib ah bay ku dhex jirtaa markay qisaska akhrinayso xaqiiqo waxaa ah qisaskaas iyo buugaagtaas iyo filimaantaas oo dhan waa nolol khayaali ah marka ay ku leedahay gabadhu noloshii aan aaminsanaa guurkayga kama helin macnaheedu waxa weeye buug iyo cajalad iyo show iyo qiso khayaali ah oo la akhriyey oo jacayl iyo oohin iyo naag ninkeeda sacrifice u samaynaysa oo waxaas oo gabadhu ay marka hore ku leedahay aaminsan tahay ninka aan jeclahay wax kasta waa u huraya xataa hooyadii aabbahay iyo reerkeenna iyo nolosheeda dhan waan u huraya marka dambe noloshu sidii ma ah waa nolol khayaali ah xaqiiqada gabadha xaawada mu'minka ah jacaylka ay rabto waxa weeye waxa la yidhaahdo alxubu alxaqiiqiy waxa weeye an tuflixii fii rabti qalbi zawjiki bilaakhira inaad ninka aad guursato aad ku dadaashid ood ku guulaysato inaad aakhira ku xirto oo taa isku jeclaataan balu fiirsada
jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo jacaylka khayraadka la sameeyo inaad qalbigiisa geliso waxa la rabaa hadday maanta dumarku markay isu yimaadaan waxay ka sheekeeyaan jacayl ninkaygu uu jecel yahay anu ninkayga waan jecelahay mid walba waxay ka sheekeynaysaa nolol cajiiba inay ku noosho dhici karto nolol been inay tahay baa dhici karta haddaad daboolka ka qaadid jacaylkan ay sheegaysa ninka ay jeceshahay lacallahu laa yusalli waxaa dhici karta inuusan tukaninba baa dhici karta ma jacaylkaasaa meel gaari ama wax keeni meel ma gaari waxna ma keenayo walidaalika waxaan leenahay xaaway caqliga ilaahay ku siiyey oo rasuulku kugu ammaanay sallallahu alayhi wasallam isticmaal oo caqligaasi waa maxay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari ku sugan ma ra'aytu lam ara min naqisati aqli wa diin ma arag mid caqligeedii iyo diinteedu nusqaan yihiin xadiiska meesha harma fiiri aghlaba lilubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakunna oo ka qaalib noqon oo ka leexin og nin go'aan la caqligii wuxuu nabigu kugu amaanay kugu tilmaamay inaad nin go'aan leh oo caqli badan aad saad rabtid u leexleexin kartid ninkaaga u leexi dhinaca khayrka u leexi dhinaca diinta u leexi dhinaca aakhiro jacaylkaas geli ha ku noolaado waad ku liibaanaysaa adduun iyo aakhiraba qof kasta oo bini aadama fi taariikh albashar wuxuu qiraa inay dumarku yihiin makhluuq aad u awood badan khalqi aad u awood badan inay yihiin waxay dhahaan waxa kamid ah mathalka ay mashhuurka oo ay dadkii hore laga soo gaaray waxay dhahaan almar'atu allati tuhizzu almahda biyadin tuhizzu al'aalama bilyad al-ukhra qofka dumarka ah oo mahdiga gacan ku ruxaysa mahdiga waxa la yiraahdaa bahalka cunuga la saaro hadda bahalkan baby carrier cunuga lagu qaato yaa la yiraahdaa gabadhan cunugu ugu jiro bahalkan cunuga lagu qaado ee gacanta ku ruxaysa oo cunugan gilgilaysa say u seexiso ama u aamusiiso gacanta kalena caalamka dhan bay ku gilgilaysaa bay dhahan macnaheedu maxaa laga wadaa caalamka dhan ayada dhaqaajisa labada rabtay isku dirtaa labada rabtay heshiisiisa labada rabtay war u kala qaada waxay rabtay makrisa bay dhahan waa awooday sheegayaan dumarka waxay kala dhahan hadday xumaato dumarku waa min abraci jundi ibliis ciidanka ibliis ku qaraabto oo ku ugaarsado midka ugu awooda iyo caqliga badan weey walidaalika nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam jannada ayaan arkay fara'aytu akthara ahliha an-nisaa markaan arkay jannada waxa ugu badnaa dadka galaya fuqarada naartana waan arkay fara'aytu akthara ahliha an-nisaa dadka ugu badan oo naarta galaya dumar bay ahaayeen waa dumarkii ciidanka ibliis noqday carabtuna waxay dhihi jireen waraa kulli rajulin aziimin mar'a qof nin kasta oo awood badan oo taariikhda basharka la sheego qof dumaraha ka dambaysa caruurtaad arkayseen oo quraanka xifdinaya oo quraanka akhrinaya dadkaad arkaysaan dadkan aad magaca la ujeedaan mid walba hooyadii baa soo saartay waxaa la rabaa marka awooddaas rabbaaniga oo ilaahay ku siiyey inaad ka faa'iidaysatid oo dayacin baa la rabaa waa awood ilaahay ku siiyey waa inaad ogaato horta qudraadkaaga iyo awooddaada oo ka faa'iidaysatid waxa salafkii ku sugan qisas cadiim ah oo yaab leh oo na tusaaleynaya dumar intay ka faa'iidaysteen sirtii ilaahay tusay iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dad cajiib ah noqday waxa kamid ah gabadh la jiray umra oo ahayd xabiib al-ajmi naagtiis xaaskiisa waxa la yiri intay hameenkii istaagto ayay marka suxuurta la gaaro ayay ninkeeda kicisay markaasay waxay ku tiri qum ya hada war ninkanow ka istaag bay tiri qum ya rajul war ninoo istaag waa ninkeedii istaag oo ka qad dhahaba al-layl hameenkii wuu tagay وجاء النهار مالنتي ويتمد وبين يديك طريق بعيد هرت هذا جدا أربع كادم بأيه وزاد قليل صحيد أظن ويرتهي وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا صفر كدتك وناك سنانا وإن غهر مران وين الآفين دتك وإن قتقي
وتحت ونحن قد بقينا أننا وان هري دتك waa ka haray meesha ka kac inagu taas waxaan ragga ku dhahnaa marka aan shaqo ka hadlayno markaan income ka hadlayno markaan lacag saving ka hadlayno laakiin marka aakhira laga hadlayo bay salafka ragga oo saa u lahad jireen ilaahay ha u naxariisto gabadhii salafka kamid ahayd oo ninkeedu markuu subaxii shaqada aadaya albaabka u istaagtay markaasay waxay tiri ilaahay baan kugu dhaariyay ee ha noo soo shaqeynay waxaan xalaal ahayn ilaahay baan kugu dhaariyay aniga dartay naar ha u gelin ilaahay baan kugu dhaariyay hooyada xiriiri allah ku xiriirinaya qaraabadaada xiriiri allah ku xiriirinaya hooyada baari u noqo ilaahay baa ku jeclaanaya ay ku tiri haddaad goysid ilaahay baa ku goynaya al-imaam ash-sha'bi ayaa wuxuu soo galay baa leeyahay suuqa adoomada markaasay dadkii waa ku soo orda waxay dhaheen dan miyaad leedahay maxaan ka gadnaa markaasuu wuxuu yiri xaajati suuratun hasana waxaan rabaa qof dumar oo sawir qurxoon yatanaamu fiha tarafi oo ishaydu ku qabowsato ويلتذ بها قلبي يتلذ بها قلبي او قلبي يقولوا كن معانسدو وتعينني على طاعة ربي او ربي طاعتي سنة ايغو كالميسا قف كاس ما ايه هيسان فيري قروح لي يوناقي يا خيركي وحو انت صو دن محو كربي اني اخر او كالميسو وحالها مركي قفك دمركا اني ارنكا اي كفايديستو مسألة كله أو حاو أي ما أنت أبهنته وحاوية أما أن تصالينه حواء بين العناية بالأبناء وإهمال الزوج حاو عفورتي بيكد دا شيء نمكن ويضيع عليه مسألة دا سحوية أول اهتمام المرأة حوين إذا مركة هراء عصوبتها للجرسده oo arooska lagu jiro ihtimaamkeeda ugu badan waa ninkeeda way ka fakartaa way soo qurxisaa way soo jiidataa waxyaabo mustaxiil abay u samaysaa sida ninka u soo jiidato markay cunug dhasho hal cunug hadda way ama labo ama saddex markay dhasho say u kala xoogaa ay u kala dulqaad badan yihiin dumarku ayaa waxa dhici karta inaad aragtid iyada oo كو قروح ذي هرتا وي هالمانت سوته أم حد دمر كلا قد عيا مرها داد أمول بعتها زعيل سي أدل دليس الصبغ يا حير يا مشالي يا ألاب سي أدل دليس بكلا فكنا يسا محاد دعي مركا لبس صنو مركا يسام مرتو أما صدح صنو gabadhii 20 sano jirtay waxay u agtaa 50 sano inay jirto bay agtaa away timihii xariirta u eka oo laga shaqeyn jiray hameen walba waa la halmaamay hadal maalin markii hore aan iriba dumarka qaar ka qariyano hadda ma dhahayo laakiin rag qaar baa yiri away bajaamadii quruxdu badneed oo xariirta ahayd oo kalarka cagaarka alahayd oo hameenkii la xiran jiray meesha loo karka iskaga jirtay oo waa la halmaamay meel guriga ka taala lama yaqaan gurigii dhammaa oo ahaa beerta iyo cadarkii iyo bakhuurkii iyo wixii oo dhan waa la halmaamay nimanka waxay ku dhahayaan maxaa gurigii bakhuurkii alaabtu ka soo urjitay caanaha ka soo uraaya wax kale kama soo uraayaan kalimaadkii macmacaana waxay isu bedeleen eed sheegad cunugii maanta ka dawrta cunugii ku mashquulsanta cunugii bay ka ashaagaysaa qolkii jiifka waxay dhaheen wuxuu isu bedelay isbitaal dhinaca waxa saaran dheebaradii dhinaca waxa saaran maxaan ku dhahaa bahalladii caanaha lagu shubi jiray miisaska waxa taxan prescription-kii daawooyinkii baa taxan yaa taxan wixii oo dhan waa la hilmaamay away ninkii marka aadam away وعرري وافكدي مخايدو كشاكينايا صوته غوري لوما سو جيدا نينكي مخايدو كشاكينايا صاحبيدي بو اسكلا عوينيا meelahaas iskaga mashquulsan yahay
وحال الربا إخواني قبلنا مسلم كا أو ذكية إننا سعد نقول وحوا أصل يا فرع أصل كوانينك فرعنا وإلمها إن أصل كنستو سو فرع ونكسن هذا هو هبرها الله تلينية أو إنكي ما كاز ملا سو كشك يا وسان أو لا إله إلا هالعنو كاسي الحمد لله ده نكون هاي ستاي الحمد لله ده ومهمة مكوانة هاي ويصير أميا أيقنا معنى هذا وحويه وحال الربا إن قبلنا مسلم كأ أي أرنك كفير سطو وأصل كأي كد داش السي فرع في عناضه هذا الزوج ككد داشد ذلك المهنة وسامين أوريك وهجاجية مسألة ذكلا وحاوك سابسا وما أنت اللجوء رأي واحد بدنا الله جهله وحويه حواء وطاعة آدم حواء إيا طاعة أما مقلك أما أطيعتانك أي أطيع منك هذا آدم أي أطيع هذا مرك إلهي كلية هنينك على أطيع مرك رسولك كلية صلى الله عليه وسلم نينك على أطيع مسألة ذا أجوه الرئيس وحويه إن اعتراف تدمر لماذا هذا فإذا أنا كجرت مسألة ذا أجوه الرئيس كجرت وحويه إن درين تدجنان قف دمره مسؤول لجيه أو دجن أو اسكو كلصون إن أتاه مهمة ده وحويه إن هذا أهين قف وريرسن أو challenge كجرته أو مرة بدقال أتاعه إن هذا أهين إن هذا كاجا كأطيع عيد وحكسته أو شرعي عن كهر إيمانين وشرعي كهر إيماني يقف بني آدم الله ما أطيعه ما أطيعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بخاري وريه وحاوتي من جبر أنصاري ده وحيتري رسولك الله جبر ده يديما من أجوريه مركزه وحو أمري تميه بكداتي وحو أمري إن أنت مبروكاء أحريريو محاسن أياه ننكي بأمره نبي يقول مده وانك أجي أطيع صوته ومعصيه نبي يقول حجر صلى الله عليه وسلم لا إنه قد لعن الموصلات كو تمها حريري ولا لعنة ذي هدو حمانكو أمره إيا معصيه هكيلي لكن وحكست أو شرعي عن خلاف سنين كيال هدوك أمر وحن أما آذر ربين أدو أما شرعي حتى خلاف سن هداد هأديد أسلوب نيجاتيف أو هأديد أسلوب قف تفسير سنية أو وحي ربا إني فهمته أو وحي ربت إني أغاته أو وحي ربت إني عديسو صوته أن منكم مجع على دمر كمعاند كأوه تشالنجك سنية واسكوري رسال marka xataa markii waxa dibsatid aad aragtid sida qof wixii faahfaahsanayo marka la hadlaysid dadka muxtaramiinta oo kale arrinkan masaana masawaasan saan iyo saan yaa qurxoon saan iyo saan yaa noo fiican saa usluubkaas inay marto weeye gabadha muslimka waxa la yiraahdaa farrajulu yuhibbu almar'ata sharikatan la munafisa ninku wuxuu jecel yahay dumar nolosha la wadaagta ee ma jecla dumar أصدق كل جرت ترتن مجعله محاكا رمضان مثلك عرفت أيديه جرين الويل للبيت الذي تصيح فيه الدجاجة ويصمت فيه الديك هوك باكود عي قري دقاقة دينا أي قيلين يسو ديقينا وآمسيه قري الدورة دينا أي قيلين يسو ديقينا آمسيه وقري هلاك سمي معناه هذا ما حيقولي أي قفك الدبر كتلينيس أو قيلينيس أو أيدي أي دجالميس أو أيدي أي إسكوديس إنه مدح كنقط نينكينا ويا قفك الله تليني أو حل أمري أو لقو قيلني أو لا هاللي وأقولي بابعي مركب حال ربا طاعة زوج إن أفهمتي وجنة هذا إيمان كاجوي معها وح ملك اللي كان يقفك الأمري وجنة الطريقة تكون قليلة هي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحي أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قف كستو دمر أو وابريستي همين بريضي أيضا ننك هذا رالي أكيه أيما امرأة ماتت قف كستو دمره لماتي أيضا ننك هذا رالي كيه جنة قش هذه ما أنت إلهي واكو بريسيو نفتو كابح هذا أظن كابح رالي كيه جنة قش النبي صلى الله عليه وسلم وحليه حسين بن محسن إددي
ayaa u timid nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasay waxay ku tiri danbay kala hay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu danti u gudayba wuxuu ku yiri adaatu zawjin anti man nin baad leedahay qaalat na'am baytiri qaala wuxuu kayfa anti lahu sidaad u tahay ninkaaga قالت وحيت ما آلوه إلا ما عجزت عنه وحي أن أودي واي ما أهنا وحبك ما هكذا والدلالة قال وحي انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك في رميشا ننك أجا كجوكتد أما وجنة هذه أما والنار هذه ننك أما النار بات كجلي أما جنة كجلي لا بدأ مدوي أضو إسفيري وحديث إمام أحمد وريوي مسألة ذكلا طاعداس marka laga soo tago xawaa wal alaaqatu zawjiyya xawo siday u aragtaa dhaqanka guriga ayada ninkeeda ka dhaxeeya waxaan ku noolahay mujtamac background keena mujtamaceena mujtamac gabdhaha markay yaryadihiin waa loo sheekeeyaa hooyooyinka u sheekeeya inta badan kuwa kala u sheekeeya waxa laga dhaadhicinayaa nolosha ninka iyo ayada ka dhaxaysa inay tahay nolol cabsi iyo argagax ku xiran oo dhib badan inay tahay waxa laga dhaadhiciyaa naagta ninkeeda raganimada badan inay tahay mid ninkeeda controlsho markay guursataba waxay isku dayaysaa inay noqoto traffic inay noqoto booliska trafficga taagan oo kale ninka banaanka hadda taagan maartay dadka kala amray oo kale wariyaasaha samee wariyaasaha la rabaa saa lama rabo inay dhaho ayadii waxa la rabaa gabadha muslimka inay barato sida ay ninkeeda ula tacaamulayso ولذلك waxay dhahaan markay wax ka qoraan dumarkeena muslimaadka ah iyo dumarka hadda gaalada dhaqanka u dhaxeeya inagu waad aragteen gabdhaheena cadaanka waxay ka qabaan cuqdad naag cadaan ah aan la tartami kara waa balaayi ninkiiba iyada qaadanaysa waxay arkaan naaga balaayi ah saan nimankii waxay arkaan naaga balaayi ah war naag cadaan waa saan war naag hebelow waa saan dumarkeena waa dumar saan way qaylo badan yihiin saan maxaa keenay waxay dhaheen markay wax ka qorayeen dumarkeenu markay ninkeeda la dhaqmayso waxay kula dhaqmaysaa bimuntaha alwaqaar walixtiraam wala tu'ti illa alqaliil way is-aruurinaysaa way is-xirxiraysaa ninkan waa nin islaameed say u aragto waxaaba ku jirta ninkan yuusan ka awood badan yuusan ku xukumin wax yar bay nolosheeda u furaysaa oo siinaysaa dumarka hadda gaalada iyo marka laga sheekeynayna waxaa la yiraahdaa يأخذنا القليل ويعطينا الكثير وحير بينك كقادنسا وحوين بيسينيسا معناها هذا وامحي وارتين جعيل يا بلايو هذا لما معان يا وحبا انت اخرنا يا صوما باخرنا يعني انت صح الله يودك دغلada inay ninka maskaxda ka qabsato wax kala ma waxa la rabaa gabadha muslimka adiga ilaahay baa ku tababaray rasuulkiisa baa ku tababaray ummahaadkii muuminiinta ku tababaray saxaabiyaadkii nabiga ku tababaray dhaqankoodii midka kaliya oo sirta bini aadamka fahmay baa ku tababaray inaad noqoto qofka ugu dhaqanka fiican oo ugu aqliga badan oo ugu maamulasho og gurigeeda iyo reerkeeda ayaa la rabaa inuu qofku ay noqoto inaad ku dadaashid ninka dareenkiisa psychologiyada maskaxdiisa inaad ka agdhawaatid dareenkiisa saad u fahamtid waxa uu damacsan yahay ولذلك محال يراهدا لا حياء في الدين دين تلقى محشوضه دين تلقى محشوضه وامحي النبي صلى الله عليه وسلم وحونا براي قفك الدمرك حتى سيدا اي جيركيدا او هاجاجس ايونا براي والفير صدق مركو النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث امام مسلم وريي عشرة من الفطره فطره وحاكمه التبوح وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم كو قص شاربك الله قابي وحاكمها وقص الأظافر عديها الله جرب وقصل البراجم ما لها ديرك اللالابان أو قرقرصون أو لا نقو وقعمها ما لها أو كلا ما لها إحدادا ما لها لالابك أو ديرك كميدا ملكسو ديرك كميدا هو قشن أما وسق يلي كرتو والاستنشاق صندارسي والسواك عضيسي وفيرسو مركو كشك ونطف الإبط كالكشة الله رفلا نظيفيه وحلق العانة تماها وصاء الله حيره وانتقاص الماء بيو إن لغو استجوده زكريا وحوي مدي
tobnaad baan garan waayay oo waxaan u malaynayaa inay ahayd luqluqashada macnaheedu waxa weeye nolosha ama nadaafada midda muuqata iyo midda qarsoonba inaad ku dadaashay baa la rabaa wal fiirsada waliba tan qarsoon baa tan muuqata ka muhiimsan inaad inuu qofka dumarka xaawa inay akhrido joornaalada iyo majallaadka caafimaadka ah oo ka hadlaya sida qofku uu jirkiisa uga shaqeeyo intaas oo hadda joornaal iyo intaas oo website iyo intaas oo macluumaad ah hadda yaala available inaad ka faa'iideysatid waxaad ma ogaataa cadar midkan ugu fiican oo la isku carfiyay waa biyaha sida salafkii dhihi jireen Abdullah ibn Ja'far baa gabadhiisa u dardaarmay ibn Abi Talib wuxuu yiri gabadhiisa markuu u dardaarmayay wuxuu yiri iyaaki wal ghira fa innaha miftahu talaq iska ilaali masayrka waa furaha furitaanka waxa lagu furayo talaaq ka iimaanaya miftaaxiisu waa masayrka wa iyaaki wa kathrati al-atab iska ilaali ee sheegashada tirada badan fa innahu yurithu al-baghdha qofka kalu kugu diraa وعليك بالكحل إن دكولك كددال فإنه أزين زينة وقروح ذمتك أقفي عن وأطيب طيب الماء بيها أقفي عن عذر اللي اسكو عارفين وحيري نكلو محمد ابن عبد الله ابن حسين أو حسين ابن علي بن أبي طالب عليه سو قبيه سلاح الله وحيري صدح قف دمر كددا شيء ولقد دول كمان عذر الماء والسواك والكحل وبيها يا عضيقة يا دكولك معناها maxay daliil u tahay biyaha iyo cadayga maxaa loogu soo celcelinaya in qofka dumarka ay ku dadaasho nadaafadeeda waxaan rabaa insha Allah taala waqtiga inta dhiman inaan kalimaad yar yar oo aan kula hadlayo aadam inaan ku dhameystiro xaawo ma wada dhameystiri karto sababtoo waxaan mawduuc aad u dheer buu ahaa bal aadam aan fiirino يا آدم ورفقة بحواء آدم وحواء أدمري محاضرين كان أنت بدن وحي مركز بسبب دلان دجال دمرك وحي دهان دمرك وشاخ كوسة حذاء رجع حذاء رجع وودات كوسة حذاء وهذا كويس برجع عن سلسلة دان ودني لين كوان فوركا دمر بيسوي إجراء رجع حيكون الشيخ ده حاله الفهد ناقة هذا بالقرض كالعاوة قبو وحلقات دي جاي بالصراع ما أساس ما هو والنصائح آدم كأن ربنا وحوي آدم مروا البحصوصا أخي وحن مروا البحصوصا تآيدا قرآنك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كو الله كبقى وكو مركو الشيطان تابتو مروا البا وانتوموا الله حسوستا ومركا وحفهنا وحال الربا هدو خلدمو ننكو إنه مرول بلابته هديه حناقه إنه مرول بلابته إنه مرول بشيطان كدكتون هذا وحكله آدم كأن حسوسينينا حاوى وحكليه أو يكهربته ما أنت أعد ثنيس وهلوح وحيكل هذا وحان ربع آدم قعنت إنتو إقبته دون تان يرير كان هو جاميو أو جيده أو جد كسحد أقوى وصارون معه انت صاير تروح كلام ربط ورجعنت اقبو جد كوناكسن يجيد او يقوض وحان اهي فرق الله عنه وحي كل هذا حاو وروح كلها اي سمين دردارا كي النبي يقول مامل والنبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا دمرك خير مرولبا يصد دردار ما صوته وحلقه ابو فرق الله عنه وحي كلها اي سمين دردارا كان النبي قاضو صلى الله عليه وسلم way ku leedahay waxay ku leedahay waxaan rabaa mas'alada kale inaan ka hadlo xogaa inaan boobsiyo aadam wa jamaalu xawaa aadam iyo quruxda xaawo aadam seebu arkaa quruxda xaawo waxaa dhici karta ninka inaga midka markuu guursanayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa gabar cad oo qurxoon oo indho buluug ah oo dheer oo saan oo eeg oo saan waa gabar aan Soomaaliba laga helin ama Afrikaan ba aan laga helin ma maskaxdiisa ku jirto ninka saadahay seebo isagu u eegyahay waxaad xaawad hadda waqtigan la joogo xaawadii ma joogto
inta geel lagala baxo oo gabar qurxoon oo uu nin oday ah iska guursado oo 100 geel ama 20 30 geel ah ka bixiyo uu soo rabo u maamuli jiray waxay rabtaa xaawada maanta joogta nin quruxdeeda u arka aqligeeda quruxdu waa aqli nin u arka quruxdeeda inuu ku dhaqmo xadiidka nabiga ah fadfir bidaati diin midda diinta la ku dadaal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay dumarka diinta leh xataa dahabka iyo doolarka inay ka qiimo badan yihiin qofka dumarka oo diinta leh ولذلك عمر رضي الله عنه حديث صحيح مسلم كسغان يا نساء غيرك ايام ان صح نبي waxa lagu soo dajiyay quraan ka sheekeeyay dahabka iyo fidada markaasay saxaabadu waxay yiraahdeen unzila fi dhahab wal fiddati ma nazal fidada iyo dahabki wixii la soo dajiyay baa lagu soo dajiyay fa ayul maal natakhid maal kam xan sameysana maxaan maalka ku dadaalaa umar baa wuxuu yiri ana idin soo ogaanay قايدكيسي وفولي النبي قلت صلى الله عليه وسلم وعي رسولك إلهي أي المال نتخذ مال محان سميسنا وأنت السؤال سوى نوضة الله ما أنت محان سيف قرينا أو مال أهون أكون نظر لقنا أون كده ذا الله والنبي صلى الله عليه وسلم وحاد كده ذا شان أو سميستان ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا قفكين ها سميستا قلبي ألك شكريا ولسانا ذاكرا يعرب الله حصى وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة يقف مؤمنة أو قفك أقول كالميسة أمور آخرة أنت مالك لقوا سميسو مياد قرن إنسان نفط قفك بني آدم كأه يدرين كيسو قف كي قان النبي صلى الله عليه وسلم مجرو هدي أجري لها واحد دين كم مهم صن أو ضمر لو وحش أسجع نتصل لها النبي صلى الله عليه وسلم سجن تصلها وذلك أن أرنكاس وإن قروح ذا الضمر كالله أركو إن يتهي دينته إيا عقلك إيا قفك الشخصية ديسة إيا وناقيسة مدى ظاهر كأه نول ومدى على قرحان مسألة لبعض وآدم كسابسا آدم والعلاقة زوجية آدم يدقن كالضمر دقن كقرية سابوا أركا وحو أركا آدم guriga dhaqankiisa oo dhan inuu yahay sariirta inuu yahay in isaanta loo galmoodo khalaas markuu dan ka yeesho hadafku waa intaas wadaalika maxaa dhaca markii wax yar oo gogasho xumaato reerkii tawatur baa dhixgalay dib baa dhixgalay waxaad ogaataa nolosha guriga sariirtu waa qayb nolosha kamida waana qaybta nolosha qurxisa qayb kamida لكن وحي وضتا وباكيج سلا سعودة نلش وحال ضمرك وحي ربان حاو وحي ربتا كلمة معان هذا الوناكسن قبل أن مركا أوه الرسول للجورسودو وقف نجحرن أو ولقت غير أرق ننكا معلن واه وحو برا هداد وناك برتد ويبرن هداد جعيل برتد ويبرن هداد قيمة برتد ويبرن هداد صرير برتد ويبرن هداد وحكة برتد ويبرن aduu gacanta qabo oo saad rabtid ka dhig ogaada hadii ardaygu uu wax baran waayo isagoo dadaalayo oo ardaygu meeshii jooga soo macalinka lama canaanto haday gabadhu wax baran wayda aadama la canaan sawta asaga muhiim ah nimanka qaar ba hadda waxay ku leeyihiin waxyaabaha hadda la yahay romantiga iyo waxyaabaha ku saabsan hadalada macmacaaniya wuxuu u haystaa inay teenage ka dhaqankooda tahay anu waan mashquulsanahay maxaa sheekh taxi iyo traag iyo waxa ilaahay qoorta noo galiyay caga barar iyo luga barar iyo salbararka waa meesha maanta la fadhiyo baa dhaq maxaan haynaaba anaga caag noqonay war waxaad ogaataa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qof ka mashquulsan ma jirin hadaad shaqaysid nabi maxamed uu shaqayn jiray sallallahu alayhi wasallam ganacsadu ah Soomaa Khadiijo maalkeeda markuu gursanayay ganacsadu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu sii waday wali ma joojin markuu Khadiijo gursaday هذا داعي أما الشيخ تهي نبي يا كداعي سنة ومدان أنبو وحبرية يا كمشغول سنة هذا نساسه تهي كان يجلس مع نسائه كان يداعب نساءه دمرك كان يلاطف نساءه دمر كيسة وقص الجري ولا شيء كيسن جري هذا الكوم معانين جري دقن في عمه كل دقن جري عائشة كشها كيس صلى الله عليه وسلم أو حيلة هاي النبي صلى الله عليه وسلم ما لنبو إتو إلى ترتمي أيام كورد بدي أنا قبر يرى
markaasuu ila tartamay markuu weynaaday markaasuu iga orod badiyay marka anigu aan cuslaaday asagoo qoslayay waxay leedahay ayuu yiri dalika bitilka waqoslay macnaheedu waa maxay waa nooc entertainment ah waqoslaya markaasuu tan midii u qaada Aisha waxay leedahay Aisha fi sahih hadith ku sahih muslim ana hayd qaba fiir muhiimada ku jirta ragana had dumarka waxay u macmacaayeen kaliya markay dan kale yihiin waxay leedahay ana hayd qaba macnaheedu waxa weey ninku marka dan kama leh ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam intaan weel biyo ku cabay oon u dhiibay ayuu intuu wareejiyay buu meeshii anuu aan biyaha ka cabayay buu afka saaray soo ayada tusay laf hilibahan goostay intuu wareejiyo meeshaan ka goostay buu caliyadeedii buu goostay soo ayada u tus waa mulaatafa soma si dareemaysa qofka dumarka ninka saa ula dhaqmayo wanaag badan may dareemaysa waxaan rabaa marka inuu ninku isaas fahmo waxaan rabaa aadam mushkilada ugu weyn oo hadda ragga haysata waxa kamid ah oo raggeena haysata waxa kamid ah dumarka marka laga hadlayo waxa la rabaa in ay dumarku u muuqdaan dumar aad u qurux badan oo iska shaqeyso oo cajiib ah oo saan ah oo sida dumarka filmaanta jila u eg buu raba xaaskiisu inay noqoto oo weligeed aan 20 sano dhaafin hatta haday 10 cunug dhasho asagiina naftiisii waa halmaamay waxa dhici karta ninka saa dhahaya inuu basal iyo kuwa la yiraahdo guriga markuu joogo shukumaan baa garbaha u saaran iyo macawi soo duuduubantay yaa garbaha u saaran gabadhiina wuxuu rabaa in noqoto qofka dadka ugu qiimo badan inay noqoto rabaa war waxa la rabaa ninkan qiimaha saas u eg gabadha quruxdeeda siinaya inuu asaguna quruxdiisa Abdullah ibn Abbas muxuu yiri walahunna mithlu alladhi alayna bil ma'ruf say gabadhaydu isugu kay qurxisa xaaskaygu ayaan jeclahay aniguna inaan isugu qurxiyo bal rabaa marka ninka waxa la rabaa inuu asaguna isku dadaalo nolosha waxa tawaturka gelinay waxa weeye labadii daraf mid baa dayacan mar walba mid baa dayacan mas'alada hadda dibkan haysto hadda ugu daran aadam haysto waxa weeye aadam al-ittikali aadam oo xaawo tala saartay talada guriga dhan ayada haysa ilaahay baa idin ku dhaariyay wallahi ikhwani mararka qaar kood haddaad aragtid familada qaar kood say u nool yihiin ilma ka iimaanaysa maxay xaawo maanta ku jirtaa horta guriga ayada mas'uulka ah caruurta ayada mas'uulka ah caruurta ayada iskuul geynays caruurta ayada dugsi geynays ayadoo intaas wada midkii jirna ayada isbitaal geynays ayada inta ku fayso kacaysa waxa arkaysa laba cunug ama saddex cunug ayadoo midna xambaarsan midna gacanta ku wada oo la wareegays away aadam ayna huwa waxa dhici karta saddexdii inuu shaqo ka soo baxay makhaayadu ka sheekeynaya toddoba cunug iyo sideed cunug nimanay u joogaan yaa makhaayada hortooda taagan war ma waqtiga intuu ka batay buu saa sameeyay maxaa gabadhan miskiinta war ma yeena runahay war run dumarka dhibka haysta fiiriya rafaad baa haysta rafaadkaas waa maxay aadan baa ayada tala saaray oo mas'uuliyadii ayada ku wareejiyay asagii away wuu is casilay xaqiiqadu ikhwaani saas ma aha ilaahay sida uu dumarka mas'uul u saaray buu ragana mas'uul u saaray ayada suuqi ka adeegaysa u fiirso suuqa ayada ka adeegaysa meel kasta ayada ciyaalka la kaca ku faysa hadda macallimiinta dugsiyada iskuulada warayso aabayaasha lama yaqaano inta badan hooyo un baa ordaysa wal single mothers baa waxa dhan ma aha dugsiga marka ciyaalka la keenayo 20 van hadday isdaba taagan tahay marka ugu yaraato 5 iyo 10 ama 7 ama 8 kamid ah dumar la wada mid ka wadana caruurtana waa mid xanaaqsan oo buufis qaba oo isu arkay in lagu shaqeysanayo maxaa ciyaal baan maanta iska daba wareejinayna maxaan sameeynaa wallahi walaa kamid ah maalin wuxuu yiri sheekhow hal saac in ciyaalka la iiga tago wallahi 12 saacadood inaan soo shaqeeyaan ka jeclaa saacad ciyaalka la iiga tago ayadina 12 ka saac inay haysto raba subhanallah wa wax yaab la weey yaab la marka ikhwaani waxaan rabaa ninku inuu qayb ka qaato nolosha insha Allah waxaan ku soo gabagabeynayaa kelimada ugu dambaysa
آدم إيا صاحبدي ساو صاحبدي آدم أولا رقما قبل وحي حاوة وحي كل هذا ننكي آدم أها مركو صاحبدي اللي جوغا ننكي ما بقى هوا وننكي وقصلية أو شعترينية أو كفتمية أو مسائل دين أن منك الله بارية أو الله النقاشية أنا مركو اللي جوغا وجه كذوضا نادم حشية أنا قامس أي ساسولة أنا قامس حشية سادوم رمانك مركو الله قصلية أيضا ما هذا الشيء هي ووجه كذوضا ورمساء صح وحال الربا إخواني قفك إن لزوجك عليك حقا حاسك أقول وحكول هذا حق وقفك دتك كوجودو صاحبك صاحب هذا أقول قيمها بدن إن أيضا نقطه أيضا إن نقطه أن هدي أن وقتي وهلا وقت كلام أن قيبها كلام آدم يحاول من كهذا الدورة أنت سانكو سو جبينا وقت كان أن إله وحنا كبر يا وحي أن الصيبي إنه أن نقول إصلاحيه إنك نفتح أن وحي أن كجابنين إنه نقول دار جزاكم الله خيرا والله يقول حوي السبيل